inaan ka baahiyo channelkan la yidhaahdo Sharmaman dastuurka Jamhuuriyadda Somalilan qodobadiisa iyo siyaabihiisa adigu ku taqalluqo macnaha sida loo sameeyay iyo waxyaabo ku salaysan yahay si loo fahmo oo shacabka Somalilan u fahmaan. Marka waxaan doonayaa bal inaan isku dayo Jamhuuriyadda Somalilan inaan anna mujaahidnimadeeda qayb ka qaato si qof kastaaba meel uu de mujaahid ka yahay oo dee wadannimadiisa ay kaga dheehanta oo de qof kastaaba kii soo qoray oo mujaahid u ahaatay kan sii baahaynayna markaa inuu mujaahid noqdo ayaa muhiima oo juhdigiisa u geliyo qarankiisa Jamhuuriyadda Somalilan siduu heer u gaari lahaa amba heerkan maanta ay soo gaadhnay qoraalkana ay hore ugu sii gaarsiin lahaynna dadka inaga sii dambeeya amba hadda jooga aan ogeyn amba meelo ka durugsan jooga oon la socon dastuurka Jamhuuriyadda Somalilan. Qof kastaaba sharci buu ku hadlaa, sharcigan waxaa weeyaan waa sharci ay dhigteen dad isku kaashaday oo sheer noqday si ay isugu yimaadaan amba manhajkooga ay noqdaan midaysan. Kolley dalkaas marka la dhisayaa dal bilaa dastuura ma jiro. Qof kastaaba dastuur ayuu samaystay oo ku hagayaa inkastaan ka leexanay ilaahay cilmigiisii oo kitaabkii qur-aanka ka leexanay inkastoo qodobada uu qorayaa uu sheegi doono waxyaaba laga soo dhigay kitaabka qur-aanka kariimka ilaahayna taa ina gaarsiin doona tan dadkun baa lagu kala dejinay inkastay kasii fiicantay taa kitaabka qur-aanka in lagu xukumo oo muhiim tahay oo tahay buggii ilaahayna soo raaciyay adduunyada gebigeegaba waa kitaabka keliya qaabkaad u socon lahayd qaabka u noolaan lahayd inkastoo haddana ka leexanay ilaahay nagu hago oon waxayna qorqornoon dhoodhoobanayaan isku hagno sidii gaalada kale tanna markaa insha allah tacaala waxa weeyaan aan ku dhaqanno markaa waan ku socon doonaa. Marka waxaan doonayaa inaan aan faahfaahin ka bixiyo inta karaankayga ee aan ka fahmay dastuurka Jamhuuriyadda Somalilan. Cidda aan gaarsiin karana waa cidda Somalilandarka ah ee doonaya inay dalkooda iyo dantoodaba ay horumar ka gaarsiiyaan si qof kastaba cadaalad u helo dastuurku qof kastaaba uu dastuurka xeerka qabanayo xeerka aan qabanayn uu kala ilaaliyo iyo qofkan inuu xaq ku socdo iyo inuu xaq darro ku socdo uu kala qaban karo. Marka iminka waxaan bilaabayaa waa hordhacaya iminka waxaan doonayaa toddobaad kasta inaan maalin aan ka gudbiyo marka uu badan yahay waqti badan pages badan buu leeyahay qodobo tafatir badan buu leeyahay adigu haddaan hadda kudso in yaroo qadara qodobkaas oo qaybta koowaad uu si kala baxayo nuqul buu kala baxayo xubinta koowaad waa 1 2 3 waa imisa waa ilaa 7 qodob. lambar 2 qodobka xubinta kalena waxay sheegaysaa ilaa 20 qodob. Qodobka qaybta kale saddexaad ee adarkas ay u jeedaana waxa weeyaan ilaa iyo 21 laga soo bilaabay kala hore 20 meeheed imisa 60 qodob ay noqonaysaa. Marka haddana on ka sii laxanana qaybta kale galana taasi qaybta koowaad baheed qaybta labaad ayadana sidaas kala baxaysa. Qaybta labaadna way badan tahay waa 1 iyo 2 ilaa 8 minoo taagneed tan waxay noo istaagi doontaa 8 iyo 6 iyo 50. Hadaad marka waxaan doonayaa marka waxaas u badan yahay waqti badan buu qaadanaya juhdi badan buu qaadanaya xagga kalena waa 7 marayaa laga soo bilaabay ilaa iyo 79 halka qaybta tuugtuuga salama taagna qaybta saddexaadna waa page kale isaguna xubinta iyadana saddexaada oo qodobka saddexaada oo haddana sii kala baxaya 80 xaggaas maraya la sii dhaafay 89 haddana tuuga adigu way badan tahay uma soo koobi karo waqtiyarna kuma soo koobi karo way ballaaran tahay. Marka adigu maalinba qodob ayaan doonayaa inaan iska soo dejiyo
si aan u keeno oo faahfaahin aan dadka uga siiyo. Marka insha Allah tacaala markaa waad ila socon doontaan si fahanka sidaan u fahmay idinkuna aad u sii fahantaan. Kolley cilmigaad baratay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qul haddaad fahantayna waana iga sii gaadhsiisaa. Marka cilmigu qofku inuu sii gaadhsiiyo waa muhiim oo qof kastaaba qof uu sii gaadhsiiyaa. Marka cilmiga inaad la seexato maaha, aad la dhimato maaha. Waa inaad wixii karaankaaga aad qaban karto aad qabataa, waqtigan aad siisaa, aad ahaan qof iska soo taagan oo bilaa raja ah. Marka ana intaydan ka qayb qaadan doono insha Allah mujaahidnimada dalka. Marka adigu waan wadi doonaa, maalinba qodob baan sii wadi doonaa insha Allah tacaala. Waan qodobka koowaad baan toddobaadka dambe bilaabi doonaa. Iminkana waa intan waa hordhac, waana sii ogeysiinayay iga sii raalli ahaada. Marka waqtiga igu yarna intaasaan kasii gaadhsiin karaya insha Allah. Mar dambaan isugu iman doonaa hadduu Alla ka dhigo.